shir jiraad oo maanta saxaafaddu u qabtay xafiiskiisa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga galmudug Abshir Diin Cawaal ayaa waxa uu ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid yihiin khilaafka u dhaxeeya madaxda galmudug oo soo noqnoqday kaasoo soo ifbaxay markii gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee galmudug Cawka Xaaji Cabdiraxmaan uu sheegay in xilka madaxweyne Caalin uu ku ogyahay bisha February sanadka 2013 ay ku wadaan qalqal iyo isgaarsiinta joogta ah maalin walba in meel gaaban laga raadiyo madaxnimada suuragelinin oo nasiib darro runtii waxaan uga tacsiinayaa dadka dadweynaha reer galmudug oo dushooda la isku xaganayo oo la isku qabsanayo oo dad ay moodayaan inay mas'uul yihiin ay ama hogaaminayaan ama ay doonayaan inay hoggaanka u qabtaan arrintaas dadka uga tacsiinayaa dadweynahayga waxaan ka codsanayaa inay deganaadaan nabadgelyada ay ilaaliyaan wax isku soo baxa iyo wax bannaan baxa oo aan wasaaradda arrimaha gudaha ogeyn aan la samaynin dadka intay shaqaxaan doonayaan inay guddiye ka qabtaan ama maamul ka dhex sameeyaan maamulka galmudug uusan ogeyn ama qaar mas-uuliyiin sheeganaya galmudug inay u shaqaynayaan oo bayladgareeya ama diiday wareegtooyinkii madaxweynuhu soo saaray iyo amarada joogtada ah oo ka yaalla ma garanaysaa qaabka nabadgelyada iyo horumarka ka hor imanaya waxaan horta uga tacsiinayaa dadweynaha ayagana waxa la Allah ka saaruusho inay daayaan waxaas oo ka kaaftoomaan dadkooda aysan jaawareerin iyadoo aan wax golaha wasiirada gaarin jirin iyadoo cid u idman inay guddiye samaysan aysan jirin iyadoo ninka madaxweynaha ku-xigeenka oo kusimaha hadda sii awoodiisu ay tahay inuu wasaaradaha la socdo shaqooyinkooda iyo wixii madaxweynuhu u wakiisho waxaan ognahay qoraallo madaxweynuhu ka tegay oo uu ka codsanayo ama u soo bandhigayo in aan madaxweyne ku-xigeenku idan u haysan inuu wax guddiyaa sameeyo cid kaloo haysatana maba jiraan marka waa nasiib darro in la isaga tallaabsado waxyaabo sharci darraa hadalkani wasiirka ayaa waxa uu ku soo beegmayaa xilli shirar kala duwan ay ka socdaan magaalada kuwaasoo qaar ay soo qabanqaabiyeen odayaasha dhaqanka iyo madax ka tirsan galmudug kaasoo kii ugu dambeeyay uu maanta ka dhacay magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug waxaana hadalka wasiirka sidoo kale uu ku soo beegmayaa xilli madaxweynaha maamulka galmudug Korneel Maxamed Axmed Caalin uu ku maqan yahay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya halkaas uu qayb galaya shir looga hadlayo arrimaha dastuurka Soomaaliya Saciid Cismaan Yuusuf Lafoole S24 TV magaalada Gaalkacyo